بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قيمة بدن وكسو دواذا موقال أن أغهد لدونه بإذن الله تبارك وتعالى موضوعه ruuxa muslimka ah xaqa uu ku leeyahay walaalkiisa kale ee muslimka ah. walaalayaal haddaba way badan yihiin xuquuqda ee muslimiinta dhexdooda ay isku leeyihiin. insha allahu tacaala xuquuqdaasi waxay noqonaysaa ilaa 5 xuquuq. can abi hurayrata radia allahu canhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5. أبي هريرة waxaa laga wariyay Allah ka raali noqdee أن رسول الله صلى الله عليه وسلم rasuulka alle naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee qaala wuxuu yidhi rasuulka صلى الله عليه وسلم حق المسلم xaqa uu muslimka uu ku leeyahay على المسلم مسلمka kale walaalkiisa ah 5 weeye. kow xaqa koobaad waa raddu salaami, salaanta inuu ka radiyo walaalkiisa kale muslimka ah. assalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu ugu jawaabo wacalaykum assalaam. haddii uu yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi asagana intaas oo ka sii badiyaa. walaalayaal haddaba salaanta oo la radiyo waa waajib. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fi suurati الnisaa waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha. waidaa goortii xuyiitum ladin salaamo bitaxiyatin salaan faxayuu salaama biaxsana minha mid ka wanaagsan. salaanta ladin salaamay oo ladinku salaamay mid ka qiimo badan oo ka fadli badan oo ka wanaagsan oo ka dheer oo ka waasacsan ugu jawaaba. tusaale assalaamu calaykum haddii uu ku yidhaahdo walaalkaaga muslimka ah, adigana waa inaad ku dartaa wacalaykum assalaam waraxmatullaahi ayaad ugu jawaabaysaa. haddii assalaamu calaykum waraxmatullaahi uu ku yidhaahdana waxaad ku siyaadinaysaa wabarakaatuhu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ayaad leedahay. haddaba walaalayaal xaqa koobaad ee muslimiinta ay isku leeyihiin ama muslimka kale uu ku leeyahay xaq ahaan waa raddu salaami, salaanta inuu ka qaado oo ka radiyo. salaanta radinteeda ama qaadisteedana waa waajib. qofka ku bilaabayo waa sunnay ku tahay, qofka laakiin oo la salaamay waajib ayaa koraayo. waa inuu markaasi salaanta waa inuu radiyaa ama uu ka qaado walaalkiisa kale muslimka, waajib ayay ku noqonaysaa. walaalayaal xaqa labaad ee ruuxa muslimka uu ku leeyahay walaalkiisa kale muslimka waxa weeye wa ciyaadatu lmariidi. qofka xanuunsan waa in lasoo booqdaa. walaalkaaga muslimka ah markuu xanuunsado waa inaad soo booqataa. hadduu isbitaal jiifo isbitaalka aad ugu tagtaa, hadduu xaafad jiifo uu xaafad ku xanuunsan yahay xaafadda waa inaad kusoo booqataa. hadba meeshuu ku xanuunsan yahay waa inaad kusoo booqataa. haddii uu qaraabo kula yahay kaba sii daran oo xuquuqda way badanaysaa. haddii diris uu kula yahay sidoo kale xuquuqda intaas waa kasii badanaysaa. marka haddaba waxaa loo baahan yahay walaalayaal ruuxa muslimka ah inuu ka warqabo, hadba soo booqdo walaalkiisa kale muslimka markuu xanuunsado. waa xaq ay isku leeyihiin labada qof oo walaalaha ah oo muslimiinta ah, waa inay markaasi hadba midka kale inuu soo booqdo. walaalayaal xaqa saddexaad wuxuu noqonayaa watibaacu ljanaa-is. ruuxa muslimka markuu geeriyoodo waa inuu walaalkiisa kale janaasadiisa wax ka raacaa, uu salaatuljanaaza uu ku dukadaa, uu sogootiyaa ilaa qabriga laga geliyo, ilaa laga aasaayo, inuu markaasi uu la socdo janaazadii uu wax ka raaco, salaatuljanaaza uu wax kaga dukado, meydkii wax ka qaado ilaa qabriga laga geynayo
uu la socdo uu u duceeyo inuu u duceeyaa la rabaa insha allahu tacaala. halkaas marka wuxuu ka helayaa ajir fara badan oo qiraadaan ah. marka insha allahu tacaala marka xaqa saddexaad ee ruuxa muslimka ah walaalkiisa kale muslimka uu ku leeyahay waa sidaas. xaqa afaraad ayaan soo gaarnay walaalayaal. xaqa afaraad wuxuu noqonayaa isagana wa ijaabatu dacwa. walaalkaaga muslimka ah markuu kuu yeero waliimatul cursi uu kugu yeero uu ku yidhaahdo walaalow aroos baan qabaa birito ee ii kaalay, waa inaad ajiibtaa. laakiin bishardi waa inaysan ka jirin halkaas wax munkar ah, waa wax fasahaad ah. wax munkar iyo fasahaad inaysan ka jirin halkaas. haddii munkar iyo fasahaad iyo music iyo heese iyo waxyaabo kaloo shareecada islaamka lid ku ah haddii meesha halkaas ay ka jiraan, waa in uu ka joogaa ruuxaasi loo yeeray. laakiin haddii aroos wanaagsan uu yahay, waajib ayay ku noqonaysaa inuu ajiibo wicitaankiisa. walaalkiisa cidda u wacay waa inuu ajiibaa, waa inuu aqbalaa, madaxa uu geeyaa uu yaraan. haddii xataa wax uu cuni karin ama uu degdegsan yahay, xataa inuu niyada u dhiso markaasi meeshii uu tagaa madaxa uu geeyaa. walaalayaal, xaqa shanaad ee ugu dambeeyo wuxuu noqonayaa wa tashmiitu lcaadisi. ruuxa muslimka ah markuu hindhiso oo kadibna uu yidhaahdo alxamdu lilah uu yidhaahdo, waa in walaalkiisa kale muslimka uu la joogo waa in uu ka farxiyaa. sidee ugu farxinayaa? qaabkee ugu farxinayaa? wuxuu leeyahay walaalayaal, markuu ruuxa hindhisay oo muslimka ah alxamdu lilah uu yidhaahdo, dadka walaalaha kale oo muslimiinta ula jooga ama hal qof ha noqdo ama ka badan ha noqdeen, markuu alxamdulilah yidhaahdo waa inay ugu jawaabaan ama ugu farxiyaan yarxamukallah, ay u duceeyaan ilaahay ha kuu naxariisto. ilaa alxamdulilah uu yidhi isaga, ayagana waxay leeyihiin yarxamukallah. isagana wuxuu ugu sii jawaabayaa yahdikum ullahu wa yuslixu baalakum. ilaahay ha idin hanuuniyo walaalayaal, wa yuslixu baalakum, arrimihiina allaha hagaajiyo. arrimihiinana allaha hagaajiyo ayuu ugu duceynaya walaalayaal. xadiiska waxaa wariyey bukhaari iyo muslim, muttafaqun calayhi. xadiiska waa laysku waafaqay. imaam bukhaari iyo imaam muslim ayaa xadiiska wariyey. waa xadiis saxiix ah. insha allahu tacaala walaalayaal, kelimadeyda intaas ayaan kusoo koobayaa. wajazaakum allahu khayra wa ilaa liqaa'in aakhar. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. subxaanaka allahuma wabixamdik, ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astagfiruka wa atuubu ilayka.